asalaamu calaykum maalin wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada muuqaal kale maanta waxaad i sharxi doonaa filim thriller ah oo soo baxay sannadii 2017 ciwaankiisuna yahay till death do us part haddaba daawasho wacan filimka ayaana la barayaa lamaano qurux badan oo michael iyo madison la kala yidhaahdo kuwaasoo si farxad leh ugu wada noolaa qasrigan waxaa ka dhexeeya jecel u muuqday mid aan la jebin karin laakiin maadaama ay tani tahay hordhax sheekadeena wax walbaa mugdi ay isku beddeli doonaan kadib 2 sano oo isqabeen madison waxay riyadeedu la ahayd inay michael qoys la dhisato laakiin nasiib daro isagu riyadaas ma uusan la qabin sababtoo ah ma jeclaysan fikrad ah inay carruur yeeshaan dhammaantii mar kasta ee madison arrintan kusoo hadal qaado wejigiisa ayaa doorsoomaa maadaama carruurta ay yihiin hadiyad ugu fiican ee eebba uu waalidiinta ku manaysto madison ayaa si joogtaa u baaraysa inay uur yeelatay laakiin natiijadii baaritaankeeda mar walba uu niyad jebinaya ayada michael isagoo u muuqda nin wanaagsan ayaa wuxuu had iyo jeer xaaskiisa u xaqiijinaya inay weli haystaan waqti ay uur ku qaadi karto waa hagaag aynu marka hore daha ka qaadno nolosha dhabtaha ee uu michael ku nool yahay waxaa soo baxday in isagu uu dhibaatooyin badan soo maray taasina waxaa kuu caddaynaysaa markii uu muuqday qabrigii hooyadiisa oo uuna ku dul ilmeeyey labadiisa waalid isku sannad ayay dhinteen laakiin iyagu si caadi ah uma aysan dhiman oo si murugo leh ayay isku dileen kadib booqashadiisa xabaalaha madison oo xafladoodii sanad guurada sabrais uga dhigtay ninkeeda xafladan waxaa sidoo kale ka soo qaybgalay dadkii ay michael shaqwadaaga ahayn iyo madison saaxiibteeda qaaliga ee chelsea halkan waxaynu ka ogaanaa in madison ay qaadatay go'aan weyn oo waxay ugu dambayntii go'aastay inay shaqadeedii isbitaalka macsalaamayso oo inay keliya noqoto marwo guri joog ah marka madison ay mashquusha aaday waxay ka carootay dhaqankii michael ee ahaa in suuliga oo furan uu ka soo tago xafladda kadib michael wuxuu madison siiyey silsilad wadne oo kala qaybsan qaybtii soo hartana isaga ayaa xirtay goor dambe fiidkii michael wuxuu waqti la qaatay saaxiibkiisa kaas oo ku wargeliyey inuusan diyaar u ahayn inuu ilmo dhalo sababtoo ah wuxuu rabaa inuu keliya ganacsigiisa xoogga saaro saaxiibkiisa ayaa kula taliyay inuu arrintan xaaskiisa kala hadlo maadaama ay iyaduba rabto ilmo michael markii uu gurihiisa ku soo laabtay wuxuu diyaar u ahaa inuu arrintan xaaskiisa kala hadlo laakiin iyadu ma aysan u dhaqmayn sidii caadada ahayd waxaa soo baxday in madison ay heshay daawooyin uu ninkeeda isticmaalaya daawooyinkan ayaa michael wuxuu u isticmaalayay inuu testosteronkiisa ku yareeyo si uu uga hortago in madison ay uur yeelato taa cagsigeeda madison waxay had iyo jeer u malayn jirtay inay iyadu cilada haysato oo ayna ilmo dhali karin waxay ka carartay inuu weligiis been u sheegi jiray maadaama ay iyadu ilmo doonaysay balse michael ayaa ugu jawaabay inuusan ilmo rabin oo boqolaal jeer ayuu iyada u sheegay laakiin iyada ayaa go'aankan ku adkaysanaysay markii ay bilowday inay caatamto michael ayaa isku dayay inuusan xanaaqin balse markii ay soo hadal qaaday aabihiisii dhintay ayuu dharbaxsho ku dhuftay wuxuu sheegay inuu yahay ninka gurigan maamula oona xeerkiisa lagu dhaqmayo waxaa kale oo uga digay inay mar dambe aabihiisa soo hadal qaado laga bilaabo waqtigaas xiriirkoodii ayaa mugdi noqday maadaama habdhaqankii michael uu rabshad isku beddelay xiriirkoodii hore ee wacnaa ayaa qaraar noqday oo xitaa waxyaabo yaryar ay isku qabsanayeen mar kasta oo isqabsadaanna michael ayaa si daran xaaskiisa ula dhaqmaya madison oo ay mar riyadeed u ahayd inay qoys dhisto oo xitaa ay ka soo tagtay shaqadeedii ayaa hadda ku nool nolol niyad jab leh habeenaad ka mid ah markii ay lamaanahan ka soo qayb galeen munaasabad shaqo michael ayaa hanaasay markii u arkay xaaskiisii oo nin kale la hadlaysa markii xafladda ka soo laabteen michael ayaa isdejiyey oo wuxuu markaas u tagay xaaskiisa madison dhowr isbuuc kadib madison oo aad faraxsan ayaa saaxiibteeda chelsea tustay natiijadii baaritaanka uurkeeda kaas oo noqday mid positive ah waxay rajaynaysaa in cutub cusub oo farxad leh uu bilowdo 4 bilood kadib waxaa soo baxday in madison ay si qarsoodiha ugu laabtay shaqadeedii hore laakiin weli xiriirkii iyada iyo michael kala dhexeeyay ayaa halis isku sii beddelay wuxuu isagu su'aal gelinayay aabanimada cunugiisa oo xitaa xaaskiisa oo uur leh ayuu caradiisa kala dul dhacayay chelsea ayaa madison ku boorisay inay booliiska ku dacwayso laakiin madison ayaa u muuqtay mid cabsanaysa iyadoo ka walwalaysa xaaladii ay saaxiibteeda ku jirtay chelsea ayaa arrinta ku wargelisay booliiska oo booliiskuna waxay soo jeedeen in madison ay soo qorato warqad ay ku dalbanayso inay booliisku difaacaan hadda markii uu 6 bilood marayo uurkeeda madison ayaa boorsadeeda soo xirxiratay oo waxay go'aansatay inay la joogto saaxiibteeda chelsea markuu tani ogaaday michael ayaa isla markiiba u soo ortay oo iyaduna waxay sheegtay inaysan u adkaysan karin xadgudubkiisa kadib michael ayaa naagtiisa dhulku kala tuuray oo madison oo isdifaacaysa ayaa madax dhalo ugu kala jebisay ninkeeda waxay ka faa'iidaystay fursaddan oo waxay ka soo tagtay ninkan jirdilka u geysanayay laakiin isla markii ay rajad u soo bidhaantay waxaa soo baxday musiibo kale oo madison ayaa shil gaari gashay dhakhaatiirta waxay ku dadaalayeen inay iyadu badbaadiyaan laakiin qadartu ayaa sidaas ka duuneed oo michael waxaa lagu wargeliyey war naxdin leh kaas oo ah in madison uu maskaxdeedu dhiig ku furmay waxaa intaas kasii daran in iyadu ay dhimatay intii lagu guda jiray qaliinkeeda oo sidoo kale cunugeeda xitaa waa la badbaadin waayey michael ayaa niyad jabay oo xitaa markii ay dhakhaatiirta ku dalbadeen inuu eego meydka xaaskiisa waa uu awoodi kari waayey muddo kadib michael ayaa webiga aaday si uu halkaas ugu shubo dambaskii xaaskiisa taasoo meydkeeda la gubay xitaa wuxuu dumcay inuu murugo darteed naftiisa u dhaafiyo balse waa uu kari waayey muuqaalka qaybtiisa xiga filimka waxaa nala tusaya madison oo weli nool iyo sidii ay ugu suurta gashay qorshahan xariiftinimada leh oo ay ku baxsatay maskaxdan oo dhan waxaa ka dambaysay saaxiibteeda chelsea taasoo isbitaalka la shaqaynaysay si wada jir ah ay u dejiyeen qorshaan oo ka mid ka ahaa samaynta shil been ah iyo ka dhigista madison inay dhimatay
ciyaartan ay dheeleen ayaa ahayd mid heer sare ah oo dhakhtarka isbitaalkan wuxuu ahaa mid ay la heshiiyeen. intaas oo keliya ma aysan ku filnaan oo Madison ayaa meel kala degtay iyadoo ka fogaanaysa ninkeedii dhib ku hayay. waxay bilowday inay waiter ama kabalyeer ahaan uga shaqayso maqaayad. waxa kale oo Madison bedeshay magaceeda iyadoo nala baxday Kate Smith. noloshu waxay socotaba waxay la kulantay nin deriskeed ah oo Alex lagu magacaabo. Alex waa nin ay xaaskiisu dhimatay oo wuxuu aab u ahaa gabadhan yar oo Rachel la yiraahdo. waxay u maadeen inay Madison ku codsadaan tabarucad loogu talagalay inanta iskuulkeeda. maalin maalmaha ka mid ah Madison ayaa qabatay Alex oo miro ka guranaya geedkeeda. markaas ay u kacday inay isaga la hadasho. dhanka kale Alex ayaa bilaabay inuu haweeneydan la kaftamo oo uuna ayadana la geliyo isagoo qadadooda ku casuumaya. xilligii qadada Madison ayaa u tagtay deriskeeda oo waqti ay la qaadatay. laga bilaabo maalintaas iyagu waa isku soo dhawaadeen oo Alexna wuxuu Madison ka caawinayay inay isu diyaariso dhalmadii ku soo fool lahayd. isdhexgalkoodu waa uu sii kordhay oo Madison waxay u muuqtay mid faraxsan. habeenada ka mid ah Alex ayaa Madison u sheegay in xaaskiisu ay geeriyootay intii ay Rachel dhalaysay. inkastoo Madison ay nolosheeda soo wanaagsanaatay ayaa haddana Alex wuxuu dareemay inay wax qaldan yihiin sababtoo markasta oo ayada magaceeda ugu yeero ay haddana mararka qaarkood aysan jawaabaynin oo waxaad moodaa in magaceeda uusan Kate ahayn. iyadoo isagu jawaabaysa ayay bilowday inay ka sheekayso dhibaatooyinkii ay soo martay iyo sidii ay u guursatay nin ay ku khaldoontay kaasoo maskaxiyan iyo jir ahaanba ugu xadgudbay. waxay sidoo kale Alex sheegtay in magaceeda dhabta uu yahay Madison. maanta xigtay Michael ayaa yaabay markii ay si lama filaan ah u soo waceen isbitaalkii ay Madison ka shaqayn jirtay. iyagu waxay la yaabnaayeen sababta ay xaaskiisa u soo xaadiri weyday si ay u qaadato mishaarkeedii bishii ugu dambeeyey kadib markii ay shaqada iska cashay. Michael laftiisa ayaa yaabay sababtoo xaaskiisa goor aan dhawin ay shaqada ka soo tagtay kadib markii uu isaga ku codsaday inay guriga ka shaqayso. wuxuu haweeneydii ku wargelay in mishaarkaas aysan u baahnayn maadaama ay xaaskiisu geeriyootay. laakiin markii ay haweeneydan shaqaalaha ka mid ahayd eegtay diiwaanka isbitaalka waxay ogaatay in markii ugu dambeysay Madison la dhigay qaybta gargaarka degdega ah balse ma aysan jirin wax dhimasho ah oo iyada loo diiwaangeliyey. xogtu waxay kaloo sheegaysaa in Madison ay isbitaal ka baxday isla habeenkii lasoo dhigay. markuu tani maqlay wuxuu si toos ah u aaday isbitaalkii kadib wuxuu helay silsilad uu horey u siiyey xaaskiisa. maanta xigtay Michael ay saaxiibkiisa la wadaagay sida ay qariib ku ahayd in isbitaalku aanu haynin diiwaanka geerida xaaskiisa. saaxiibkiisa ayaa u sheegay inuu hore u socdo marba haddii uu xaadir ahaa meydka xaaskiisa oo la gubayo. laakiin Michael ayaa sheegay inuusan meydkeeda arkin maadaama ay ku adkayd inuu arko xaaskiisa oo meyd ah. sidaas darteed wuxuu jalsiyey oo Madison saaxiibteed ahayd ka codsaday in wax walba oo ay ka mid ahayd gubista meydka xaliso. markii arrintu u muuqatay mid isqaban la ay raggan ay go'aansadeen inay baaritaan sameeyaan si ay xaqiiqada daaha uga qaadaan. isla maalintaas Chelsea ayaa walaac dareentay kadib markii ay Michael ku aragtay gurigeeda hortiisa sababtoo isagu ma uusan garanayn halka ay ku nooshahay. Michael wuxuu Chelsea ka codsaday inay ka caawiso inuu raro alaabtii Madison maadaama ay isagu ku adagtahay inuu sidaas sameeyo. kadib Michael saaxiibkiisa ayaa sheegay in raggiisu ay soo arkeen haweeney Madison u eg oo maqaayad ka shaqaynaysa. markaa Michael ayaa maqaayadii tegay oo wuxuu shaqaalihii halkaas jooga u sheegay inuu yahay Madison walaalkeeda. laakiin kabalyeeradii ayaa u sheegtay inuusan jirin qof Madison la yiraahdo oo halkan ka shaqeeya. sidaas darteed Michael ayaa tusay sawirkii xaaskiisa. si la yaab leh haweeneydii ayaa sheegtay in gabadhan sawir ka muuqata aysan Madison ahayn balse ay tahay Kate Smith. waxay sheegtay in Madison ay maanta maqan tahay oo haddii uu u baahan yahayna uu wax ka weydiin karo saaxiibkeeda oo ka shaqeeya meel u dhow maqaayadda. goor dambe habeenkaas Chelsea ayaa la xiriirtay Madison si ay ugu sheegtay in Michael u yimid gurigeeda iyadoo aan ka warqabin ninka ay ka hadlayso uu sheekadooda dhegaysanayo. isla waqtigaas Madison fool ayaa qabatay sidaas darteed Chelsea ayaa u soo orday gurigeeda si ay isbitaalka u geyso. Madison waxay aad ugu faraxsaneed inay hooyo noqoto waxayna dhashay wiil ay ugu magac dartay Peace. dhowr maalmood ayaa dhacdadan ka soo wareegatay oo marka Madison ay isbitaalka bixi rabto Chelsea ayaa macsalaameysay saaxiibteeda si ay gurigeeda ugu laabato. laakiin markii ay iyadu gashay baabuurkeeda waxaa qabsaday Michael kaasoo fadhiyay kursiga dambe ee gaariga. kadib Madison ayaa diyaar u ahayd inay gurigeeda ku noqoto. Alex oo ahaa daris naxariis badan ayaa Madison u helinayay ilaa ay gurigeeda ka timaado. marka Alex uu ku dhow yahay inuu gurigiisa iska aado qof ay ayagoo aan ogeyn si qarsoodi ah u daawanayay. Madison oo musqusha ku qubaysanaysa ayaa qofkii uu si dhuumasho leh u soo galay guriga. markii shaqartii maqashay Madison ayaa si dhaqso ah u soo baxday oo waxay aragtay daboolkii musqusha oo furan. markii hore waxay mooday inuu Alex yahay kadib waxay eegtay cunugeeda kaasoo weli sariirta saarnaa. dabadeed waxay maqashay muusiga xagga hoose ka yeeraya oo si degdeg ah ay u soo egtay. laakiin qofna ma aysan ku sugnayn halkaas oo codkii muusigana wuxuu ka imaanayay samaacadeeda. markii dabaq sare dib ugu laabatay waxay ogaatay in daboolkii musqusha uu mar kale furan yahay. iyadoo yaaban ayaa haddana waxay weysay cunugeedii oo sariirta saarnaa. kadibna waxay si lama filaana mar kale u maqashay codkii muusigada. markii ay eegtay meesha ay muusigada ka imaanaysay waxay aragtay Michael oo halis ku ahaan jiray oo cunugeeda gacanta ku haya. sidaas darteed iyadoo wacsan ay isku dayday inay cunugeeda ka soo ceshto. Michael ayaa si tartiib ah cunuga ugu dhiibay isagoona u sheegay inay sariirta ku celiso. wuxuu Madison u xiray katiinadeedii isagoona uga sheekeynaya wixii ku dhacay kadib markii uu mooday inay iyadu dhimatay. maalin walba wuxuu naftiis ku canaananayay oo u malaynaya inuu xaaskiisa iyo cunugiisa dilay. aad ay ugu naxay inuu ogaado in arrintan ay ahayd brank ee Chelsea iyo iyadu wadeen oo haatanna Madison ay xiriir leedahay nin kale. Michael ayaa markaas bastooladiisa la soo baxay kadib markii uu Alex albaabka soo garaacay. wuxuu Madison faray inaysan wax nacasnimo ah samayn oo ay albaabka furto oo haddii kalena uu Alex dilayo.
sida lagu amrayba Madison ayaa Alex u tagtay oo waxay u sheegtay inay xanuun yar dareemayso oo ay u baahan tahay waqti gooni ah oo ay nafteeda la qaadato. Inkastoo uu isagu xiiseynaya inuu la joogo, ayaa haddana Alex u go'aansaday inuu gurigiisa ku laabto. Si kastaba ha marka Michael uu isku dayo inuu dhankii Madison u dhaqaaqo, ayaa dagaal uu ka dhex qarxay labada nin, iyadoona Michael ugu dambeyntii guulaystay oo uuna Alex madax dhalo ugu kala jebiyey. Marka Michael uu bilaabay inuu Alex cijiyo, Madison ayaa soo dhex gashay, laakiin iyadu waa ay tabar yaraysay. Si kastaba ha waxay Michael u sheegtay in haddii uu Alex dilo, uu isagana xabsi ku dhammaysan doono inta noloshiisa ka hartay. Isla markii uu soo dhawaaday si uu ayadu u taabto, Madison ayaa ku guulaystay inay ninkan mindi ku dhufato, laakiin dagaalku weli ma uusan soo afjarmin. Madison ayaa soo qabsatay bastooladii uu Michael lahaa, dabadeedna waxay wacday qaybta emergency-ga si loo caawiyo. Iyadoo lagu guda jiro haldanka nolosha iyo geerida u dhaxaysa, Michael ayaa daha ka qaaday in markii uu yaraa aabihiis uu hooyadiis dilay, kadibna markaas aabihii ayaa isna nafta isdhaafsiiyey. Ugu dambeyntii Michael ayaa Madison u sheegay inuu aad u jecel yahay, oo haddii uusan isagu calfan uusan qof kale heli doonin ayada. iyadoo nafteeda difaacaysa, Madison ayaa markaas toogatay Michael iyadoona qaadatay go'aan masiiri ah. Kadib waxaynu aragnaa booliiska oo soo gaaray goobtii ay wax ka dhaceen. Waxaa soo afjarnay dhibkii iyo rabshadii uu Michael waday, oo Madison culeyskii garbeeda saarnaa oo ka degay, waana filimku halkaas ayuu ku dhammaanayaa.